ina waqti fara badan in ka qaato weligay ma aanan imaanin nidaam saadaan oo kala ah oo lagu doonayo xornimada Soomaaliya laguna dagaalamaya dadka ka soo horjeeda jiritaanka xornimada Soomaaliya ama haddaan soo koobo ogaadeeniya waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa inay nasiib aan u yeeshay inaan halkaan istaago codkaygana ku taageero culudeedana ku taageero xornimada dadkayga iyo dalkayga khaasatan ogaadeeniya marka waxaan hilmaamay ONLF maanta laga bilaabo waxaan ka codsanaa shacabka Soomaali galbeed oo ogaadeen ONLF inaan xubin ka noqdo oo dhalinyarada ONLFna waxaan leeyahay madaxdiina isha ku hayo meeshay u socdaan ma aragtay waana baa kala haraysiin isha ku hayo oo si aad uga dhaxashaan waxa ay hayaan dhalinyarada ayaa hari doonta dhalinyarada ayaa xoray doonta dhalinyarada ayaa loo baahan yahay meesha ay madaxdu taagantahay inay istaagto salaamu calaykum nin gaal la socda waxaa fiican inuu dufaysan yahay oo dulaysan yahay oo qaab daran inkoo duba gaal la socda xabad la ridahay inuu qaab daran yahay iyo ku qurxanta laakiin in haybad loo gar weyn oo koofi qabo oo cimaamad loo sharafti ka muuqato oo gaal xabad la ridahay runtii ma qurxana marka nin gabiyay baa hadda gabayga ma hayo wuxuu ku soo gabay dheer soo tiri wuxuu leeyahay ma soo gaartay gaal iyo wadaad gaar u wada taagan oo isla socda xabad isla riday inta ONLF taageersan iyo ONLF baa xora thank you anagu xor ma nihin inta diiday inay daba dhilifka caanaha ka daba qaado iyo biyaha baa xor ah inta diiday waa ONLF inta kalena waxa weeye de xorba ma nihinba marka haddaan maanta xor ahaan lahaa waa faani lahaa waxaan dhihi lahaa dadkayga saa loo galayo waa inaan duulaan soo qaadaa waa inaan mataqaanaa u soo hiiliyaa laakiin anigaanba xor ahayn anaa lay haystaa haddaan nahay Soomaali weyn waxaan noo taliyey caado qaate waagi horeeto maxay ahayd waxaan ahaan jiray qof qab weyn oo waxaan u malayn jiray Soomaali maahan Afrikaanta kale inaysan waxba ahayn waxaan hadda aaminay inaan anaguba u liidano markii ay noo taliyeen mataqaanaa Ugandays iyo Sawaaxili markii anigu waxaan ogahay shacabka ogaadeen inay mid yihiin milasna uusan kala qaybin karin waxaan leeyahay markii 77kii markii la jeeray waxa la dhigi jiray taliskii asqaysna saldhigii adkaayo haddaad goday ka qabatay kaadkaate maantee taas way dhici doontaa insha Allah milas inta uu joogi doono way yar tahay dadka Soomaaliyeedna kala jari maayo guushii shalay aanu ku gaadhnay inaanu 20 cisho Itoobiya aanu kaga xoreynay dhulka Soomaaliyeed way dhowdahay midnimadana way dhowdahay ragga caloosh u shaqaysta oo meel kasta maanta joogan waxaan leenahay historyga ayaa idin tilmaami doona taariikh xun baad ka tagi doontaan adduunkana insha Allah nolol xun baad ku noolaan doontaan meesha rabtaan taga آخرنا إلهي باي كذبه وحنا الشعب كوجادين يا هنول هذا هحروبه إلهنا وحكبر يا قبلها الصومالية ده وجادين وحق دررك ودمرك هبين يا مالون أتاجن حتى نقول أرمها الصومالية كو أتاجن وجادين يا وحنا دمرك الصومالي ملك استبه جوجن حتى جيرين maxay ahayd waxaan anigu aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed oo rag anaga ka aktiifsan anagaana ka karti badan anagaana ka aqli badan guriyaha hadii la idin soo garaaca lacagta bixiya ha dahabkiina waa inaa gadiin dharkiina waa inaad gadiin waxa xaq ku taagan kuleyba qabyaalada lacag baan ku dhiibnaa gobolada lacag baan ku dhiibnaa laakiin tani waa xaq anigu waxaan aaminsanahay gabar Soomaaliyeed baan ahay nimanka maanta la iga mudan inaan wax taro oo dahabkayga u gado oo dhiigayga aan u horo waa ONLF marka ONLF noolaato waxaan maalmo dhaweyd dhageysanayay habeena badan qalbigayga runtii ka go'ay waayay hees cusub oo ay qaaday fanaanada weyn ee Soomaaliyeed Saada Cali Warsame oo ahayd ogaadeen way xoroobi xaqiiqduna waa sidaas ninkii diidaya waa isaga laakiin ogaadeen way xoroobi xaqiiqduna waa sidaas waxa kale oo iyadna jirta oo aan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga marka gobonnimada laga hadlayo nin naftiisa biimo u gashiyo bohol xun mooyaane bowdada nimay kaga dhacdiyo boqonta mooyaane gobonnimo bilaash laguma helo
ban iska taaltaale ban cad macnaha meel bannaan iska taaltaalla ogaadeen iyo ha guulaysato waa guulaysanaysaan waa hubaa inaad guulaysanaysaan aad iyo aad baadna u mahadsantihiin waa guulaysanaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu